another one تيتي عدي another one تيتي عدي another one تيتي عدي فرتون بالبلاركا أو قادتي عدسيجي إيواندي وتيتي عدي وسو جيديي إلى فول كتال دقنا دافور بربر كيكا بحضاني وابكيلا Artists are that online 24/7. They don't like none. They don't share none. Comment waxba kama sameeyaan kuwaas oo kuba ay tiri hiban nuura mana dhiman mana noola. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيرو is back. كسو دو تيتي عدي channel ديات كو عصبتا يوتيوب channel كان أما يكون تامر كاقي كواد تصوبو خطو بليز سبسكرايب سار channel كاقنباليل كير كافور الشير كومنت لو لاك اسحابتا هذا انتا صودنا ما هن وحلا عقوا بلاش أنا كاو كحقيقي كان سوق هذا ديال سبسكرايب سارت channel كان إن سنتي لقا جرن دونين أدي الله ود لو قلادو كنا سودوا موقال عصب وأنا وهاد ليو فرتون بالبلاركا أو قوان أذك خاضتين ولا شيء ذا قوان كاسنا تتعدي آديات أيو فرحي مركو كسودوا موقال كاس أو بالبلارن سقالي طبعا كبشان أن كجرنا أغسطو وحن يوتيوب كبايي برنامج أو قهد لايو فرتون بالبلاركا عدسي ودرستي داير على سو برنامج كاس مركا كادلي وحن فرين وديري ولا شيء فرتون بالبلاركا وانو نستيحي فرين تاسنا وحي ايد فرتون بالبلاركا فنانت ولا نقن جيري وانا لا اهان جيري بلسو عنكا عدسنا وحنا ويل والالكا ربو وناقاقا إن وحي هاد كدنبايا هادي دمعضي إناد هاس سو قادو aad ka dhigato hees jacayl ama wadaniyad ah aad iska deyso ereyada khaladaadka ee lagu dhiibayo aad ku heesayso bulshadana ay kaaga xumaanayaan waa iga codsi iska daa ayaan dhahay fartuun balbalaarka codsigaas inay tixgelisay ayaa cad oo maanta aad baan u faraxsanahay oo maxaa yeelay fartuun balbalaarka waa gabar walaasheeya waa gabar Soomaaliyeed dhibkeeda waa dhibkeega ceebteeda waa ceebteeda marka sidaas la ajligeed fartuun balbalaarka baaqiyaan u jeediyay way ka soo jawaabtay marka waxaan rabaa marka hore horta inaad idin xasuusiyo oo aad ila daawataan markii aan fartuun balbalaarka baaqa aan u jeedinayay iyo wixii aan dhahay ayaan rabaa horta inaad ila aragtaan waxa aan sheegayo iyo fartuun balbalaarka jawaabta ay soo celisay in horta ay iswaafaqsan yihiin ileen layskama hadlo يا دردورة قلبها كجوالي يري ليس كما هدلو اور مهري ايا الله هدلا مركورت الى اركبل واذا قنعينا قنعنتين ومهمة دي كواد محايا هذا انو نهي انو يوصو لابتو ما جعلي منا جعلان دوني مركا الى اركب الى فولكو تانو بلسي هالفرين يا هالباق ايا وحان ومرينا ولا شيء ولا شيء فرتون بالبلارك وحتى جوا سومالي وحد أنا قاعد دلتي أنا قاعد نلوك كاتريا ما دام أتى جوا سوماليات أنا قاعد أنا هاي ويل السوماليات شرف كاجا يشرف كينه وميت وحنكعد سنة فناند نخو عيب ما هرتا الفناند لنا خنجري هرتا أما قاعد لسمينجري إرياضة هست لجو ديباي بليز ereyada iska hubi ereyada ha noqdaan mid kalgacayl dareen leh tarjumaya mid qof dareen jacayl ku dhacay loogu hiilinayo ama nafsada ahaantaadaba ka hadal ha ahaatee heesta mid jacayl mid jirkaaga uga hadlaysidna yana qanin mid waxyaalaha hadda lagu caynaya ama ummadaas ay ku wareejinayeen iyo kaan qanin midda kale labiska aad heesta ku soo qaadaysidna waxaan ka codsanaa walaashay anoo ah wiil walaalka ah waxaan ka codsanaa fartuun dharka aad heesta ku soo qaadaysina inaad iska soo hubiso magaca waxaad ku sameyn kartaa codkaaga iyo quruxdaada magac aad ku sameysay hees ka hadlaysa waxyaalo xun iyo dhar laga sheekeeyo falxumo ah aad soo xirato magacaaga wax ku keeni maysid marka waxaan ka codsanaa oo waliba si naxariis leh fartuun balbalaarka kaaga codsanaa in hees markii aad soo qaadaysid miraha heesta ee ku noqoto mid jareen jacayl ka hadlaysa
ama dareen wadaniyinnimo iska ilaali walaashay in ereyo xun lagu hoosgeliyo dadka ereyadaas sameynaya dadka u dhiibi doono dadka la ogna waxaan leeyahay fartuun balbalaarka waa walaashiina hanka ay leedahay darteed yaan looga faa'iidaysanin ee ka daaya intaasna idinkaa idin leeyahay dadka wiilasha ku howlan oo heesaha u sameynaya labadaas hees ay foolxumada aheed ugu ekeeya gabadhaas haddii ay hees kala soo qaadaysa ha ahaatee hees wadaniyad ah ama hees dareen jaceyl ah turjumayso waa idin baryaa idinkale gabadhaas yaan loo celinin ceeb saddexaad waa aragteen waa aan bariyey waan u nasteexeeyey walaashay fartuun balbalaarka sida aad ka aragteen maxaa yeelay diinteena waa nasteexo xoog ma ahan qofka xoog waa uu ku didaa dhibaato haddii aa u geysatid wuu kasii xumaanaa naceeboo kuu sii qaadaa waan u nasteexeeyey waan ka codsaday waa aan bariyey in fartuun wixii hadda ka dambeeyo ay ilaaliso dhaqankeena soomaalinimadeena iyo diinteena marka fartuun maanta way soo falcelisay marka ila arka fideogii ay ka hadashay marka waxyaalihii xumaa iyo heesihii qaab darnaa xabadka salaax iyo waxyaalahaas no waa iska dhaafay ma garateen xataa hadda ka bacdi xabadka salaax inaan masraxan ka qaadayn inaan ku dhaartay waa ila aragteen fartuun balbalaarka waxay tiri wixii hore waan iska daayey xabadka salaax iyo waxaas dambe ma jirto waxaan ballan qaaday oo aan ku dhaartay ayay leedahay mar dambe xitaa masrax inta soo istaago heesta xabadka salaax in aan ka qaadi doonin waa kaaga mahad celinaa fartuun balbalaarka haddii ay taladu taydi tahay oo aad qaadatay iyo haddii qof soomaaliyeed aad taladaas ka soo qaadatay intaasba waa kaaga mahad celinaa qof kasta oo waanadaas kugu deeqdayne kheyr allah siiyo anigana kheyr allah iga siiyo maxaa yeelay gabar walaashayaad tahay oo soomaaliyeed in aad aakhiro iyo adduunyaba ku dhibaatooto labadaasba ma kula jeclaan lahayn marka saas ayaan go'aansaday in aan kaaga waaniyo ama kaaga nasteexeeyo marka aan ku sii socono fartuun oo hadalka sii wadata ila daawada oo ila dhegaysta waxaas ma jiraan dadka hadda maanta aanay taladii waanadii siiyeen madaxyahooda mar kale sheegay hadda inta ka sheega ma jecli marka waxyaalahaas khaldan intii ummad islaan oo aan haday hore waxaan u geysto mis hadal qaar aan dhahay cafiyaan intii aan dad iyo waxaan u qabo waa cafiye fanaaniintan waxaan ka baryaa intii fanaano aan aflagaaday intii waxaan dhahay aan shacfino salaadna ha tukada ilaa salaad ma tukada ilaa ka cabsadan salaad tukada salaad waa nuurkii aan qiri biraa ku tag lahayd صح godka markaad gashid iftiinkaada aawe ya adduunka markaad joogtid ayaa wax kasta salaada ka difaacaysa fanaaniinta ilaahay ka cabsada salaad tukada waa ni sheegaan waad aragteen fartuun balbalaar korto waxay qarisay waxay tiri dadka iga waaniyey barnaamijkan magacyadooda hadda ma rabinaa inta ka sheegay balse mar kale ayaan sheegay ayay tiri waxayna tiri qof kastoo wax aan kaaleeyey ama wax iga tabanayo iyo kuwa fanaaniintu wax aan ka sheegay ayaguna hay cafiyaan waxayse fariin kale oo ayadana waana ah u dirtay fanaaniinta oo ay tiri salaada hala dukado maxaa yeelay tiri maalinta aakhiro waa nuurka keliya uu qofka ku badbaadayo waa salaadiisa haddii salaadaada ay hagaagsan tahay ay hagaagtana camalkaaga oo dhanna way hagaagaysaa haddii salaadaada hagaaginna wax ma ku yaalaan camalkaaga kalena waa halbacaad lagu lisay balse ilaahay mar walba naxariistiisa lagama quusto laa taqnaduu min raxmatillaah haddii aad nooshahay iyo haddii aad dhimataba mar walba ilaahay raxmaddiisa lagama quusto mana lisdhiibo mar walba ilaahay waxaa laga rajeeyaa naxariis ilaahay qafuuru raxiim waayo shadiidul ciqaab waayo marka dadka shadiidul ciqaab keliya leh dadka tusaaya oo ilaahay wuu ku cadaabaa ilaahay waa ku cadaabaa keliya uu akrinaayo waxaa loo baahan yahay inaynu ugu nasteexeeyaan dadka
haddana ilaahay wuu ku cafinaa qafuuru raxiim waaye ilaahay waa qof addoommadiisa cafin badan waa qof haddii istakfirullah ilaahay haddii aad dembi ka geshid khaaliq ugu toobad keentid weliba ilaahay wuxuu ugu jecel badan yahay qofka inta dembaaba haddana istakfureysta oo ilaahay barya oo cafis weydiista uu ilaahay ugu jecel yahay marka ilaahay ummadiisa asigaa abuurtay asaana xisaabaya waana nalagu leeyahay annaga inaan wax sheegno annagu inaan dad cayno inaan aflagaadeeno inaan la dagaalno annaga taas xaq ma u lihin walaa taziruu waasirata wisra ukhraa ilaahay qof walbo asigaa xisaabinayo dembi uu qof galayna adiga dushaada ma koraayo okay garweyn oo aad deysatid khamiis aad gashatidna muhiim ma ah oo islaamkana aa jilaafaysid jalbaab weyn aad gashatid iyo in shareer aa xiratid muhiim ma aha niyadaadana ay xun tahay ilaa man atallaahu biqalbi saliim qalbi nadiif aa adduunyadan lagu jooga aakhiran lagu intifaaca qalbigu ilaahay daalacnaa qalbigiisa qofka garweyn inaad deysatid khamiis gashatid tusbax qabsatid ummadda shaqlakaaga wejigaaga iyo qaabkaaga aad ku sirtid laakiin ilaahay ma ku khiyaani kartid ilaahay wuxuu daalacnaa qalubta markuu fartuun balbalaarka waa gabar masaakiin oo qalbi fiican sheedaanan ka ahaadeen wixii camal ee xun ee samaysay maantana way ka toobad keentay ilaahay ha ka cafiyo ayaan leeyahay fartuun mar kalena waa ugu sii baaqaa hadalkaa hadda ku hadashay iyo dib isku soo bedelin oo hadalkii markii hore ku hadashaa ku aato maanta waxaa tiri ballan qaada inaad mar dambe heestaas soo qaadaynin iyo dhicin berina in lagu hoosgeliyo iska ilaali hadalkaa maanta ku hadashay beri taariikhda xuseyso marka waxaan leeyahay fartuun balbalaarka ilaahay ha kaa cafiyo wixii dembi oo aad gashay qof muslinaad tahay annaga oo dhanna ilaahay hana cafiyo oo ilaahay kuwa aakhiro iyo adduunyaba cadaabta adduunyana ku intifaaciya aakhirana cadaabta qabriga iyo naarta ka fogeeya allah inaga dhigo aan iscafino qalbi wanaagsan adduunyadan iyo aakhiraba loogu intifaaci karaa qalbigoo laga xun yahay aakhirana wax ma kuu yaalaan qof walaalkaa oo aad xasid ku naqanaysane aakhiro wax ma ku adduunya qofkaa ku xaasidid adiguna oo qalbiga ugu xumaysid adiguna aakhiro ma ku intifaacaysid marka videoga intaanu kusoo gabagabeyn haddii aad ka heshid videoga laag saar haddii aadan ka helinna an laag saar share dheh comment oo la wadaag asxaabtaada tan iyo kulantideena dambe waa tiiticaddoo idin leh meel walbo aad joogtaan ittaqullah ilaahay ha laga cabsado taas waa muhiimadda koowaad